inta la xaqiijiyay ku dhawaad 10 qof ayaa ku geeriyootay in ka badan 17 qof oo ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay isgoyska sayidka gaar ahaan afaafka hore ee dhismaha oo hadda xarumo u ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya. xilliga qaraxa uu dhacay way ka maqnaayeen xafiisyadooda wasiirada arrimaha gudaha iyo tan wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya. gaariga qaraxa geystay ayaa la sheegay inuu ka yimid dhanka isgoyska dabka koor inta uusan qarxin gaariga waxaa la sheegay inay ka degeen rag ka tirsan al-shabaab kuwa uu gudaha u galay dhismaha xarunta kadibna toogasho bilaabay. qaar ka mid ah dad goobjoogayaal ahaa oo warbaahinta la hadlay ayaa ka sheekeeyay dhacdadii ay la kulmeen. wallaahi jug weyn aan dareemay markii koowaad ma joogin laakiin labaad aan la kulmay anoo xaafadaha ka soo baxaayo waa marka qarax weyn aan dhaco halac oo weyn gaariga labaad waa u jeedaa halaciisa iyo fafaniinkiisa xataa ay soo gaaray oo meesha mara hari waa hari xaqiiqatan waxa weeye aniga cabdimaalik ahaan qaraxani wuxuu iga duwan yahay waxa weeye يعني مترير كوبان أيوة يقولي وحنا كشري هوتيل كان سيد هوتيل بنقوله سكشري أنا يا صاحبتي مال فديني قرحنا وكذا يعني أجي وكذا هوتيل كورتيسا يوير اللي قاعد وسار داري ما جوده نور ويدا يقرح وكذا وحوي ضدان وحبة جلبسن أياك ما هاي كلها وعم يكون نفوي shaqaale ka tirsanaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo tan amniga ee xukuumadda ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray kadib markii ay isku dayeen inay ka boodaan dhismaha xarunta wasaaradda. wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya oo warbaahinta shir jiraad ugu qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in la qaadi doono haddii ay jiraan dad dhaawacyo halis ka soo gaaray qaraxii ka dhacay maanta Muqdisho. waxaan uga tacsiyeynaa dhibaatadii iyo musiibadii saakita dhacday inta ku dhimatay waxaan leenahay Allah u naxariisto inta ku dhaawactana Allah caafiyo. waxaan rabaa inaan idin la wadaago ساكتو سيدي عادو أهيد argagixisada al-shabaab waxay soo qaadeen weerar ay ku gardaran yihiin ayna ku qaldan yihiin diin ahaan ciidamada amniga iyo dawladda qaybaheeda kale markii waa ay la falgaleen markay la falgaleenna way soo si kooban waqti yar ayay ku soo afjareen raggii argagixisada ahaa ee weerarka soo qaaday gebigood waa la dilay dad Soomaaliyeed oo aan waxba ka galabsan oo wasaaradda joogay iyo dad kale intaba waa ay dhaawaceen waxna waa dileen inta dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana dawladda Soomaaliya waxa ka go'an sida markii horeba ay ahaan jirtay dadkeeda inay ka difaacdo in la waxyeeleeyo haddii waxyeele ay soo gaartana ay daaweyso daawada haddii ay gudaha ka heli karaan gudaha lagula dadaalo haddii daaweyn dibadda ay u baahan yihiinna la qaado oo dawladaha iyo dalalka dawladda Soomaaliya ama saaxiibada la ah ama walaalaha la ah. halkan waa iridda hore ee wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya kooxo ka tirsan al-shabaab ayaa weerar ku soo qaaday subaxnimadii hore ee maanta. dadaal dheer oo ay sameeyeen ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku guuleysteen ugu dambeyn waxaana ay soo afjareen weerarkii ay ku soo qaadeen rag ka tirsan al-shabaab xarunta wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya. Zikri Maxamuud Jimcaale, Universal TV, Muqdisho.